السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا شرفتي كرامة إيقا مدن ميكستا دنيا كغرنوشي هنا ما تكتشوكتان ولكن عبد ولي إيه تشانم كيسا قياس ويدي لوان سلان الدمانتين با وحان كاعصانا يا ولال وحان كاعصانا يا قف كستا وطاوضا موقالك إنك سوق قادو هدي أنا ظهراء سبسكرايب صارين أنا سبسكرايب كان نقو عاوسان أما أنا نقو عسونتان ونقو نقو نقو عسومي دونا وحي آنو هاينو إم حيث طوي ناقستا أرمي بلشدين يعمل باه maanta waxaan jeclaystay in la wadaago qisadii iyo qisa aad u xanuun badan oo Soomaalnimo aan ku jirin dhaqannimo aan ku jirin diin ahaan aan ku jirin ee ugu la yaabka badneed ee arko inta dunida noolaa oo aan arkay shalay mooy daraato ugu dambeysay dalka Jarmalka ka dhacday arintani ma isleeday qofkay daawanayo imaka waxa dhacday gabadh ama marwo laba nin wada qaban oo midna mid ogeyn منا مد أنا أوي آمنتي تاس أنا أركي أنا صارك أنا نكو رمي هي قد دق تلك الشرمة كواحد كده عضي قصة آدو حنون بدن وديك بحة وقف كستو صومالي كنا حيا هدو أركي هدو مغربة وصدق قف وإن لبس أوجين من نقف كوحة والبأوجي هاي كبر صوماليات شرف بيكم مدنتي ما يعيد قف كشيء مايو hablaha Soomaaliyeed dhanna maxan ma sameynaya laakiin waa dad maxay tahay aan akhlaaqiyan iyo iimaan qabin buu dadku waxa sameynaya way ka afif sheekada aan hore u galo dalka Jarmalka waxa ka dhacday inaan Soomaaliyeed oo ahaan da'deedu jirto da'da maxay tahay 24 ka madaxa la gashay 23 ka la gashay 25 ka madaxa la gashay qiyaastii dadka noocaas ah oo Jarmalka ku nool muddo 4 sanadood Jarmalka ku noolayd ayaa wiil ka mid ah wiilasha Jarmalka jooga oo ay kare gobol yihiin ay isbarteen wuxuu u sheegay inuu dhaqaale haysta moohayn dadka ay soo laftii soo galay buu ahaa way jeclaatay ayadu ma shaqaysan inuu ma shaqeeyo inankii waa la ismeher xaday ama qodbi sir soo qof buu yaqaano ayaa dhacday inantii waqtiyada ka mid oo dambe waxay isbarteen nin aad u ladan oo Jarmalka isaguna jooga muddo ku noolaa wax bartay oo dadka maxay tahay xirfadaha bartay ah lacag fiican ku shaqeeya oo isaguna gobol kala degan inantu wuxuu soo bandhigtay dawaan mustaqbal raadinaya inay guurdoon inuu yahay way ka aqbash waxa ay wiirti sidii caadadii dhaqankeed baan reerkiina u soo doonanayaa sharaftii karaamadii lagu soo doonin jiray doonanayaa buu yiri way ku tiri laakiin bishardi bay ku tiri shardi ma kugu xiriyaa wax maxay tahay hambaliye ah Facebook-na soo dhigmayna social media-na soo dhigmayna wasaa sheekada lagu sheekay markii dambe aan arintu ogaaday aan daba galay oo waliba markii damaano noqday kuwii garta ka qayb galay dadkii markii garta lagu jiray dadkii ka qayb galay ee waliba goob joog ah ka mid ahaa inankii markaa inanta waxay fiilku waxay ku matashaa inan diiniyan dhisan oo akhlaaqiyan dhisan bay ku matashaa filinka way buu ku yiri arooskii meherkii wuxuu u dhacay aroos maxay tahay meherkii xaafadii way kala qaateen wuxuudii markii arrintiisa ku dhacday markii arrinta nooca ku dhacday maxay tahay Facebook iyo YouTube iyo meel baan waxba cid soo dhigin ayaa inankii waxay ku tiri waxbaan bartaa hospital iyo waxbaan diyaariyay wax la yiraahdo maxay farsamo gacmeed ama qof basuu yaqaan farsamada gacanta uu yaqaano xirfad uu ku shaqo tagto mana diyaariso markaa ku tiri inta aan ka gaarayo waxa ka dhamaysanay marna aan ku imanaya marna maxay tahay ma doona mar saas xisaab ku dhacaysa inta joogtay gurigan inanka soo doontay maalmaha joogtay maalmaha kale guriga kale ku maqantay saasi xisaabta ku wadi kana lacagta ka gurtay xabiibi xayaatay ku tirahdaa kaasna wax ku wax jacaylkeedu way waxa way jeceshay sheegtay oo waxyaabo naxdinaadu fara badan inankii inanta qabay maalmaha kamida ayaa wuxuu tagay gobolkii uu ninka gabadha la qaba uu deganaa markaa meesha tagay waa kii gabadha sida xaq ah u qabay gobolkii uu tagay isagoo gobolkii jooga ayaa waxa gurigii ku casumay labada nin way isgaranayaan way is yaqaanaan
gurigu uu maxay toy guri ka mida guryaha gobolka uu joogay magaciisa sheegay inuu gobolkaas uu tegay ayaa waxa inan ay asxaab hore ahaayeen baa ku casuumay oo yiri kaale maanta waa ku casuumayay isagoo casuumay ninkii gabadha la qabay ninkii gabadha la qabayna doorkan waxa la joogta gabadhu isagu qabay ee la qabay markaa inanki markuu gurigii soo galay waxa lagu yiri waxa soo socda maxay tahay maxay tahay magaca la yiraahdo oo magac baynu bixinayna maxay tahay kaysaba la yiraahdo kaysaan soo galay isaguna waxa la socotay marwadiisii kaysana halka markii xisaabta ahayd qadadii loo diyaar garoobay cuntadii wixii dhimanay inanki soo galay waa la salaamay war balwar khayr labada nin midna xub mooga cidna xub ma sheegin wax soo yarada nin la qabdo waa ceeb xub ma sheegin inantina way la socotaa gacanta la saystaa xaaladii meeshii way isbedeshay waxa wax ugu ninkan la casuumay ee gobolka kale ka yimi iyo gabadhan ninka kala wato bay og waxa meesha jira أنا كيف على صورة استبري ولا سوي كده مسوي ورن غير محاسة شيء كده وحلو محد شكله وحلو قاعدين تاني تاي حسابته يعني حلين قبل بيكون نابل ورنه مركزها وما تقول سن كيسو ومركزها جامعة وما تقول تنفيرها وما تقول سدو شيء كده برتي بيكون قرحضي يقولوا الناس وتنكو قبلهم كل صحة دوام حي عبا كده عضي الكاس وأنا وحيابها ودونك وليا وي كده وحلا قالي كرتي بالا قالي ninkii gabadhu wuu furay kii kalena wuu furay wuxuu ku naaga tag nin kale ku qabay imika kaligeed bay meel joogtaa waa naxdin iyo ceeb ummadda Soomaaliyeed u soo hooyanaysa wali waxaan la hadlaynaa nimanka qurbaha jooga war balse ilaaliyo oo qof agteeda joogta mooy qof ka foga guursan hablaha Soomaaliyeed dhanna waxaan ku wada socdaan waxa weeye hablaha maxay ahayd inta iimaanka aan qabin waxaan leeyahay shargareeya ummadda gaarsiiya waa wax dhacay maan loo waxaan arki doonaa malaha gabadhii sidii heestii ninkii qaaday muxuu saddex lagugu qabo gambana lagu saaray baan si bana kugu deynay oo kulun ba socota aad baa dhamaantii bini wada salaamay asxaabta sharafta iyo karaamada iga mudan gartiinada waxay noqotoon in la kala gurto reer Jarmalin waxa leeyahay war Soomaaliya intay gabadha la'aan inta raadinaysaan gabdhaha inta raadinaysaan beerta ha gelin Israa'iil leeyahay aad sharaf bay iga mudan tihiin waxaan ku codsanayaa hadiidan hore inagu mid ahayna subscribe ku noo saartaan شارك رسالة مدرسة قارسيسان هذه الضيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.